qaladkaagina ma aadan qiranin laakiin maanta insha Allah ta'ala waxaan soo hormarin doonaa codadkaagi baan soo hormarin doonaa marka cod koowaad baan soo bandhigi doonaa mar labaad codkii labaad baan soo bandhigi doonaa marka saddexaad codkii saddexaad oo adiga ahaa ee wadaadka ee dadka quraaminayay ee umada ka afakala ee ma aragtay hilibkoodii aad cunaysa soo hadii xoogtaas la soo bandhigo waxa dhici doonta in umada muslimiinta ee niga aamin baxaan Soomaalida gaalada ahna ee ku farxi doonaan oo ay wareejin doonaan muuqaaladiina waajiqa istirooga kan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوة ديالك سود هذا عمر أوسكار channel وأنيقا عمر أوسكار فضلنا هديكوتا مركو ورس مقال كان أقصى جار وحنسي ولا التنم سومال لما إسلام نمو أنك عصنا يا إنك مقال كان لايك جريسيت حتى سبسكرايب نو أود ويا حتى سبسكرايب نو أود فضلنا سبسكرايب نو صار أدي آيات وما سنتي قيبت كومنتين فكر كاي نودي أوكي مالمهان waxaa jirtay inaan soo gudbinaayay hadallo u dhaxaysa Sharma Boy iyo The Boss iyo Bu'aali Media oo codad ah balse waxaas wala soo tagay haddaad arrin jirteen dagaalada youtuberada u dhaxeeya laakiin hadda waxa soo baxay dagaalada u dhaxeeya wadaadada ilaajka singada igu saanta soo horta anaga xishmadanay mudan yihiin soo waxaan u jeednaa oo kaliya inay yihiin dad ummadda Soomaaliya boqolkiiba 70 konton ama 60 u doontaan meeshaasi caafimaad الحمد لله رب العالمين لا سامو مقالات أنك أرجنا إلهي سبحانه وتعالى قرآن كإسران وياكو عف مادان أنا جو أرجنا وحياة معجزة بدن أو صار أنا جو أرجنا تاسن احترامه وهنا لكن أنا ما أغني جذاها خوف كيسة أما وحياة والسماء أنا ما أغني قافلة كناهي بس شيخ روشي يري أي عدينا إن مركز هاي عضت يو مقالة oo markaas ka hay Sheekh Rusheeh weyn hadaba su'aashiis weydiin waxay tahay sidoo ku helay codadkani iyo fiidiyoogani okay maxaa laga haleeyay Sheekh Rusheeh yare maxaa laga haleeyay okay Sheekh Rusheeh yare ayuu markaas wacad ku maray in hadii uusan kalaaban waayay ama raalgelin uu ka soo bixin waayay muuqaal uu soo fadhiisan waayay waxa markaas ugu balan ah inaan aniga soo saarayo codadkiisa iyo muuqaaladiisa kulay Allah wacala muuqaalada wixii ahaa doono balse Sheekh Rusheeh yare si tartiib ah aan wada dhageysano qaladkaagina ma aadan qiranin laakiin maanta insha Allah ta'ala waxaan soo hormarin doonaa codadkaagi baan soo hormarin doonaa billahi albaari codadkaagi baan maanta soo hormarin doonaa marka cod koowaad baan soo bandhigi doonaa mar labaad codkii labaad baan soo bandhigi doonaa marka saddexaad codkii saddexaad oo adiga ahaa ee wadaadka ee dadka quraaminayay ee umada ka afakala ee ma aragtay hilibkoodii aad cunaysa codkaagi baa u dambaysiin doonaa labada cod kale waxaan u soo hormarinay wax kale ma waxaan ugu talagay adigu inaad ku cibra qaadato haddaadan ku cibra qaadanina waxaan soo bandhigi doonaa codkaagi oo rasmiga ah marka u dambeydana waxaan soo bandhigi doonaa fiidiyoogii ee aan isla ogeyn aniga iyo adiga iyo ma aragtay raggii kale ee markaa goobjooga ahaa okay fiidiyo isla ogyihiin jiro oo anagana Soomaali weyn ay ka qarsan yihiin kulay aniga dagaalkan umaleynaa dagaal youtuber la umaleynaa markaan dagaal sheekh hadii soo baxay kulay waxa umaleynaa ilaajka sheekh ilaajka soo baxay waxa umaleynaa sheekhyaalka kale kulay ayagan inay sir iska hayaan soo aniga ma dhihi karan laakiin kulay qof walba bil aadam walba sira u kaysan soo Allahu a'lam hay soo bandhigi doona insha Allah ta'ala fiidiyoogii waad garanaysaa anigana waan garanaya ilaahina waa garanaya dadkana la joogana way garanayaan okay ayaga is garanayo waa sax youtuber garto fanaan garto sheekha garto waa sax soo muuqaal is dhagoyina jiro oo khaas u ah qof walba xogtiis laga haayo soo waxaan dhilahay ani hadaad muuqaaladan soo bandhigtid waxa markaas sharaf dhac weyn u noqon doona culimo badan ajmacna sharaf dhac weyn u noqon doona waayo hadiibo dadkii idin aaminsanaay hadaad keentaan wax cadeynaya in idinka khaldantihiin soo markaas waxay noqonaysaa in nigala aamin baxo
marka codadis yahay ilaahay ceebtaa ku asture sheekho ceebta astur haddii aadan ka waantoobin ama aadan khaladkaaga aadan qiran ama aadan raaligelin ka bixin waxaa ballan igu ah waa subaxnimo sabti ah 13 taariikhda bisha labaad waxaa ballan ilaahay igu ah waxa adigu aad tiri ninka meesha waxa ku hayo waa indha sarcaad waa maaragtay beeri propaganda waxaan halka u fadhinaa inaynu fashilino waxaa ballan ilaahay igu ah oo ballan ilaahay igu ah haddii aadan khaladkaas iyo maaragtay hadalladaas ee laga soo duubay aadan raaligelin ka bixin oo weliba aadan iman xarunta ama dadka halkaa jooga dadka adiga aad quraaminayso haddii aadan u qiran oo aadana dhihin waan qaldamay ninka isaga ee maaragtay wadaadka halkaa jooga khalad baan ka sheegay ha iska kii cafiyo oo aadan weliba facebookyada youtube aadan ka soo hadlin waxaa ballan ilaahay igu ah saddex cod baan ka hayaa saddex cod labana waxa weeye dadka adiga kula shaqeeya ee aflagaadeysmayaan midka saddexaadna waa adiga inta haddaad ku cibro qaado weydan waxa weeye waxaan soo dhigi doonaa insha allahu tacaala fideogii adiga iyo aniga iyo ilaahay iyo dadkii markaa goobjooga ahaa hadday noqoto dadkii meesha lagu quraaminayay iyo hadday noqoto dadkii markhaatiyaasha ahaa inaad soo bandhigaba ballan ilaahay igu ah qofka dumar balan ilaahay uu qaaday laakiin wuxuu ku xiray oo kaliya sheekh Rusheeyar wuxuu ku xiray waa inaa raalgelin ka bixisaa aniga waxaad iga sheegtay raalgelin ka bixi waayo aniga wax badan ay iga sheegtay waxa tiray u dhahay in sarcad loo tahay waxyaabo badan ay iga sheegtay marka raalgelin ka bixi ummadda Soomaaliyeed aniga aad ugu direysid ina soo istaagtay raalgelin ka bixi hadda raalgelin ka bixina waxa balan uga inaan soo dhigi doono okay in badan baan ka gaabsaday in badan baan ka aamusay laakiin waad garan weyday inta lagu dulqaatay lagu ma sha Allah horta hadii aad dulqaadatay horta ilaahay maxaa la horta abaalkaaga ilaahay ha gudo laakiin ani ahaan waxaan ku dhihi lahaa ceeb weyn u tahay culimada Soomaaliyeed diinteena islaamka ceeb weyn u tahay waayo waxaa noogu jiro dad Soomaali ah oo Kristaan ah oo halaha idinka ceebtiin soo bandhigoysina oo faa'iido weyn u ah soo waxaan markaas aan hadad muuqaalkan uu soo gaaro waxaan daawad waxaan ka codsanayaa inaad soo dhigin waayo islaamka cudubgiisa waa kan ugu badan dunida waxa ku soo xiga calooshaada cadow hadii la dhaho calooshaada waa laakiin waxa cadow number 1 haysta dunida oo dhan muslimiinta cadowgooda badan marka ha soo dhigin oo bariya soo dhigin amusay waad garan weyday anigu waxa doonto adiga sheegi kartaa laakiin ummadda muslimiinta inaad khalado marnaba raali kaaga ma noqonayo marnana kuuma dulqaadanayo ummadda muslimiin baad khaladay zaalim baa tahay oo ummadda muslimiinta la gooynaya waxaad u baahan tahay ummadda muslimiinta laga qabto insha Allah ta'ala wana laga qabanaya gacan birna lagu qabanaya biidnillahi albaari gacanteena ahayn baa ilaahay subhanahu wa ta'ala kugu qabanaya laakiin anaga waxaan awoodnaa afka inaan ka sheegno waxa alla wixii asraar adiga laga hayo inaan faafino ummadan la wadaagno been ugu awoodayna insha Allah ta'ala dhamaan walaal muslimiinta khayr badan Allah hadiisiyo ummadda loo sheegay biidnillahi albaari muuqaalka ee live aan soo galay habeenkii jumcaha dad badan baa si qaldan ay u qaateen laakiin dagaalka iyaga iyo muuqaalkaas yani aan soo duub warigii uma aan hadlin si target uma aan hadlin si sarbeeb baan u hadlaa ama maaragtay maldaan baan u hadlaa saakin laakiin sheekadu mar bay dhaaftaa ma baalu aqwaamin qoom xalku suu yahay sida waa nabiga kaleey salaatu wasalaam khudbadiisa aan jirtay laakiin sheekadu mar bay dhaaftaa ma baalu aqwaamin saaka waxay taagan tahay farfiiqid bay taagan tahay insha Allah ta'ala waxaan gali doonaa biin halbaari quraan okay wuxuu yiri saaka waxay taagan tahay farfiiqaday taagan tahay cagjugleen ama waxay taagan tahay awood ay taagan tahay uu yiri horta aniga ahaan Umar Oscar ahaan waxaan dhihi lahaa wallahi mar saddexaad mar afraad aan ku cilnaa hadaad ceebtana aad soo bandhigtid waxa laga yaabaa dad badan oo niyad lahaayeen hadii culimadiina saan isku dhageysaan oo xog iska haysin soo sida adiga dadka kale xog u haysta adina xog laga haya soo hadii xogtaas la soo bandhigo waxa dhici doonta in ummadda muslimiinta ay niga aamin baxaan
soomaalida gaalada ahna ee ku farxi doonaan oo ay wareejin doonaan muuqaaladiina ayaan dhihi lahaa marka fadlan qaboojiya dagaalkiina qaboojiya youtuber walkasay inay isdagaalaan soo laakiin culimadii dhan oo muslimiinta tiirkooda ahaayay hadday idinka baxog iska keenaysaan yaa anaga markaas isha ka aaminaa marka yaa la aaminaa haddii idinkiiba oo sana xoogaan idin hayna ka haya sana tahay kana tahay haddaad isdhowsin war anaga yaa aaminaa marka ma fanaaniinta aaminaa waxay noo sheegayaan heesaa noogu sheegayaan mise kalaamka ilaahay oo aad noo sheegtin aaminaa anaga marka ilaahay ka cabsada ha qaboojiya dagaalkan qaboojiya waxna yaal soo bandhig qofkii wax ka sheeg ilaahay subhanahu wa ta'ala maalinta qiyaamo hortiisa ku xisaabtami doontaa sheekh rushe yare cod ha soo bandhigin ceebtada ilaaha asturo codna soo bandhigin marka muuqaalkan waxaan dadka daawanaya aan ka codsanahay inaa share gareeya muuqaalkana like gareeya insha Allah wixii soo kordhina waan isu gudbin doonaa waa aniga Umar Oscar